mudana madaxweyne halkani waa jiidii tukarraq halkan inaan nimaadno amarkii aadna siisay bay ku timid haddaan xaaladda halka ka warramo oog waxaan soo degnay 1998 bishii tobnaad baan soo degnay buraac ciidan ka sokeeyey ma jirin guuta qaybta 7 ka mid ah yaan darar weyne ka soo rarnay oo markaasaan oog soo dejinnay aad baa loola yaabanaa dadkii markay guutadii 2 bilood joogtay bay waxtarkay garteen magaalada oogaad aragteen saasi dhowr cariish oo yaryar baa ahdo iska soo horjeeda maantana hoteelada la seexdo iyo kuwa laga cuno iyo guryo wada dhagaxay leeyihiin waxay ku timid magaalo ciidankii degay markaasi inta magaalo ee too marteen mid walba cariish yar bay ahayd magaalo kastoo ciidanku dego magaalay noqotaa waxaan garanayaa haddaan dib ugu noqdo waagii aan ciidankii hore ahayn jaamac cali cilmi allah u naxariistee ayaan bilisqooqaani dejinnay urur iyadoo 2 cariisha haabiil allah u naxariistay waxaan dejinnay madow 6 bilood bay magaalooyinka ku hana qaadeen sidaasoo kale yagoori wadhako oog adhi caddeeyaha dhowni iyo tuulas iyo samakaaba waxay ahaan cariisho yaryar meel walba markuu ciidanku degay ayay magaalooyin noqdeen way ku faa'iideen annaguna waa ku faa'iidnay inta aan soo soconnay waxaan muujinnaa dabeecad wanaagsan inaan dadka kula dhaqanno dadka aaggaa joogo dhan markii hore cadow ay noo haysteen laakiin markaan wax yar la joogno waxay noo qaataan dad walaalahooda wayna soo dhoweeyeen hanaga gurina bay dhahaan xudun baa ka mid oo halkana oo 2 guuta mar degeen mar kasta waxay dhahaan war ciidanka wuxuu ku soo celi meeshii dabataag baa ka mid ah oo hawdkaasa dhumay baa ka mid ah intaa waxa la weystaa war ciidankii noo soo celi dawladdii hore waan ka shaqeeyey ciidamana waan ka xukumay ciidanka akhlaaqad wanaagsani ma jiro dadkaa meesha ay la degan yihiinna raalli bay ka yihiin haddaanay dadku raalli ka ahayn maanta halkaa may joogeen annaguna ilaa intaasoo kilomitir maannaan sii soconneen mudana madaxweyne sidaa haddana ay tahay dagaallo badan baan ku wada gallay puntland waxaan ku wada gallay adhi caddeeye oo dagaal xuni ka dhacay laascaanood baa noogu xigtay dagaallo badan oo fara badani way jireen dagaallada ugu waaweyne waxay ka dhaceen laascaanood iyo halkan aan joogno ayay ka dhaceen dhimasho way dhacday labada dhanba waase lanaga dhimasho badnaa 100 jeer waxaase muhiimadda guushii annagaa helay oo ku guulaysan ninka meesha guulaystay baana meesha leh in badan baa madaxweyne lagala hadlo la wadi ciidanka dib u soo celi caloodaygii aad noo caloodaygtay wardaad ma soo celinayaa tidhina waa taalkaadan ku joogna maanta oo la leeyahay iska joogaane bal yaani horunu soo socon hadda la leeyahay maanta guul baan joognaa ciidanku sidaa 15 kilomitir buu iyagu tahay dherarkiisa ayuu jiraa dhumucdiisana waa 30 kilomitir ayuu kala safan yahay ciidanku waa dhul badan buu kaga jiraa iminka meel yarunba koonun baynu joognaa mudan madaxweyne halkan garowa 50 kilomitir bay noo jirtaa jaar wanaagsan waynu la doonaynay haddii la istixgelinayo inaan jaar wanaagsan oo baacmisirka uu ka dhaxeeyo way ahayd waana rajaynaynaa ilaahay saa ka dhigo oo nin damaca intoo la iska daayo nin walba xaqiisa in la siiyo maanta madaxweyne intaad joogtay ciidanku waa kaasoo taangiyaash buu leeyahay artillerigii buu leeyahay beebeeda oo ku halkaa yaalla teknikadii waad halka arkay
وقيب يرى وادو أير عيدا كانوا حوق بوليه أود بوليه أو كدافعوا حتى أن لنا labaatan sano soo socdina marba dadka ayuu dabeecadooda isbaraayay say dadku raali noqdaan haddaan dadku ka raali lahayn ma deganaan kartid kalluun bad ku jiraa tahay baddu waa dadka adna kalluunkii baa tahay haddaan dadku ka raali lahayn ma joogi kartid dadku raali bay dhegeen magaalada hadda dadku raqeen hadda nimid maalmihii horeysa geesay lahayd maantana balloorkii baa 20 kun iyo 30 kun gaadhay dukaamada ka dhisan ilaahun baa ogaa kastam yar bay lahayd oo odayaasha iyo waxaa ka qaadqaataan laakiin maanta baacmishar idin loo socdaa ayay leeyihiin oo wada gaadho caam u noqday ayay leeyihiin halkii in yarun wax heli jirtay waana jecel yihiin maanta haddaan ciidan ka kaxeeyo ma ogolaanayaan haba yaraateen mudan madaxweyne adigoo taliyay guuda ciidamada ah sharaf bay kuu tahay inaad ciidanka caynkaasa madaxu noqoto annaguna aan kaaga hoosayno sharaf bay madaxweyne kuu tahay